Salaamu calaykum. Mandela waxa uu ku dhashay tuulo lagu magacaabo Maveza oo ku taala koonfur bari ee dalka South Africa 18 Julaay sanadkii 1918. Nelson Mandela waxa uu ahaa mid ka mid ah hogaamiyayaasha caalamka ee aadka loo xishmeeyo, waxa uuna hogaamiyey halgankii lagu bedelay nidaamkii midab kala sooca ee ka jiray koonfur Afrika. Isagoo xirnaa 27 sano, waxa uuna ku soo baxay inuu noqdo madaxweynihii ugu horeeyay ee madow ah qaab dimuqraadiyad ahaanna loo doorto. Mandela waxa uu bartay sharciga, waxa uuna 1952 xafiis qaran ka furtay magaalada Johannesburg, isaga iyo saaxiibkii Oliver Tambo. Mandela iyo saaxiibkii oo wada jira waxa ay sameeyeen olole looga soo horjeedo midab kala sooca, kaasi oo lagu cadaadin jiray madowga tirada badan. Dambeyntii waa la xiray, waxaana lagu soo eedeeyay inuu doonayo dagaal inuu ku rido dowladda, isagoo ka hadlayay maxkamadda gudaheeda dacwad lagu magac daray Rivonia. Master Mandela waxa uu gudbiyey waxa uu aaminsan yahay dimuqraadiyadda, xorriyad iyo sinaan. Waxaan difaacayaa aragtida dimuqraadiga, waa aragti aan rajaynayo inaan ku noolaado oo aan helo. Mandela waxa uu ku jiray xabsiga jasiiradda Robben Island muddo 18 sano ah ka hor inta aan loo wareejin xabsiga Pollsmoor sanadkii 1982. Bishii Diseembar 1993, isaga iyo Master de Klerk waxay ku guuleysteen abaalmarinta nabadda Nobel Peace Prize. 5 bilood kadib markii ugu horeysay taariikhda koonfur Afrika, dhammaan jinsiyadaha kala duwan ayaa u codeeyay doorasho dimuqraadi ah, waxaana madaxweyne loo doortay Mandela. Dhibaatada ugu horeysay ee soo wajahday waxay ahayd guri la'aanta haysatay dadka saboolka ah. Wuxuu ku-xigeen ka dhigtay Thabo Mbeki markii uu xilka madaxweynenimada ka degay 1999. In meelaha banaanka lagu arko waa ay yareed, waxa uuna inta badan ka shaqayn jiray hay'adiisa samafalka ka shaqaynaysay